طلع ما شو هذا يا سيدي way isugu tageen qaybaha kala duwan ee 14 November 2000 sanad kadibna waxa la dhisay baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya bay noo tahay inaad inagala soo qayb guda galo furitaanka xafladda Caleema dowladda federaalka Koonfur Galbeed waxay maanta noo tahay guul weyn waxyaalaha weyn waxa noogu daran colan may kale waliyalka taabaday madaxweynaha mudane Cabdicasiis Xasan lafta gareen dowladda Koonfur Galbeed waxa jiro culays badan dhibaato badan ay jirto dowladnimada Allah mahadle oo maanta halkan soo kaay keenay Caleema saarkan المرخاتي كلها كل جينا وولي مالين تاريخية ومدحوينيه لبعض اللي دورتي مجالدان إن شاء الله نحن رجينا إنه إلهي هوشي سوف وضوء وحن ربعنا نوهم بليو كله تذكر كقب قلي كان بينك أو ترتك كجري سنة وناكسن أو شرفت بدن أو dignified كأه أو وناكسن وقب قلين هي سنة واقبلين نتيجة إيوه إذا ملا qalabka sida Soomaaliyeed iyo ciidamada AMSOM ee Itoobiyaanka ee halkan jooga oo sugay amaankii magaaladan si ay uga dhacdo doorashadii taariikhiga ahayd oo runtii adduunka dhan laga fiirsanayay laga daawanayay oo ay cadeed sidee u dhacday runtii waxay ahayd election ama doorasho taariikhi ah waxaan rabaa inaan adkeeyo oo aan hoosta ka xariiqo hadalkii madaxweynaha uu yiri Cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen iyo madaxweyne ku xigeenkii maxaan ku raahdaa Puntland hadalkii yiraahdeen oo ahaa inuu isbedelay xiriirka dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ah waana soo dhawaanaynaa maxaa yeelay waxaan nahay hal dawlad ayaan nahay waxaan nahay hal dad ayaan nahay xaqiiqatan looma baahna in la yiraahdo calaaqaad waala kala goostay looma baahna shaqadii waajibnay looma baahna maxaa yeelay waxa loo shaqeeyo waa shacabka Soomaaliyeed waxa dhibaatadu hayso waa shacabka Soomaaliyeed waxa ku baaba'aya waa sharafka iyo sumcadda Soomaaliyeed marka inaan garbaha isqabsano gacmaha isqabsano oo aan shacabkeena iyo dadkeena u adeegno waa waajibaadka naloo doortay insha Allah ballanayna inaan wada shaqeyn doono ummadeena aan u shaqeyn doono wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh